haddii riyadaada ahayd inaad Canada tagto ama aad wax ka barato ama aad ku soo shaqayso adigoo xirfad la'aan ah inaad Canada tagto oo shaqo ama aad ka raadsato waxa baryahanba dalka Canada ka socday waa banaanbaxyo looga soo horjeedo in la keeno dad cusub oo ka soo shaqo doonanayo dalkaasi ama sidoo kale ardaydii oo ku badatay dalka ayaa maanta waxay dawladda Justin Trudeau waa ra'iisul wasaaraha dalka ayaa waxay xakintay gabi ahaanba 2 sano oo soo socoto in visa waxbarasho ah la bixiyo sidoo kalena waxa la qiyaasayaa dad aad u tiro badan ama arday aad u tiro badan markay waxbarashadooda dhimeystaan in dalalkooda dib loogu celiyo. So I asked my minister to work on this over the summer, and we are taking action. We are tightening the rules and restricting eligibility to reduce the number of low-wage temporary foreign workers in Canada. haddaba banaanbaxan iyo arrimahan ka socday Canada ayaaba baryahanba xoog waxay saarayeen waa dadka immigrationka ama immigrantska dadka loo yaqaano waa dadka soo galootiga ah oo u soo galay dalkaasi in ay ka shaqaystaan ama ay wax ka bartaan. haddaba dawladda maanta meel walba oo aragto waxa banaanbaxyo cusubna ay tahay ardaydii ajnabiga ahaa ee dalkaas joogay ornaantii ka cabsanay dhamaantoodba in deportation lagu sameeyo ama in laga soo dhoofiyo dalka sidoo kale qaxootiga ama dadkii la soo qaadi jirayna way yareynayaan so waxaad moodaa in dalka culays badan ee shacabka dalkaasi ay saareen dawladooda si ay arintan wax uga qabtaan maantana waxa soo baxay shuruucyo kala duwan oo badan haddaba haddii aad interest ku tahay Google garay raadi ama inta kala soco wixii kale oo warar oo soo kordha